Cabdilaahi Jaamac Ismaan Galajire xogayaha baabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa mar uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee ku sugan dalka Sweden ayaa ka hadlay muranka u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda waxaana uu eeday u jeediyay madaxweynaha Somaliland kaasi oo sheegay in mar uun ay dhamaan doonto is-afgaran waaga u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka dib iyo xumaan waddanka taalla oo qoto dheeri ma jirto buuqa iyo sawaxanka waxaa laga hayay ninkii qoladii berigii hore magaaladu yarayd ninkii uu soo safar tegay Hargeysa horta buuqa siyaasadeed dhaqan baynu isaga yeelanay haddii reer Somaliland nahay imikana waxba inoo yara dheer sidaan horeba u sheegay markaan dibadaha marayo ma jecli inaan ku fogaado dhaliisha dawladda iyo xukuumadda waayo kulligii waxaan ogahay inaynu waddankeena wada jecelahay inuu inoo hagaago inaynu jecelahay waxaa halkaa u joogtaan ee meel walba u taagantihiin waa inuu waddankeenu inoo jeclaado marka inaanu buuqaa idiin soo rarno aanu idinka nixino ma jeclin waanu jecelahay inaan wax wanaagsan idinka sheegno laakiin mar walbaan waxaan la qarin karayn baa iska imanay inta yare inoo dheere waxa weeye madaxtooyadii baa wixii ay inoo xalilaysay ay ilaa imika meesha ka maqantay waxaynu karaamadeenna iyo taageeradeena isugu geynaa qofka madaxweynaha inoo noqonaya innagoo ka sugayna inuu arrimaha inoo maamulo oo oday noogu noqdo inoo xalilo marka waxaa idhahaa madaxweynaheena iminku mucaarid buu ku soo raagay waddo dheer oo rafaba uu soo maray inuu madaxweyne noqdo geerkii labaad ee muxaafidkaa u geli la kii qararacdaas buu hayaa geerkii labaad taana waxaan rajaynaynaa in ilaahay idinkii aynu isfahan ka gaadhno oo ay noo dhammaato waxa ugu weynaynu iminka isku haynaana waa doorasho aakhirka waxay ku soo ururaan waraababa waraabo canaanay waase walaalkii Somaliland weli waxaa ka jirta runta marka la sheego kala qaybsanaantii ka dhashay doorashada dee waa ogtiinoo doorasho sideedaabay horta kala qaybsanaan u tahay dee waa tartankaasina kala qaybsanaan buu keenaa dadka ciyaaraya tartankaa sida kubadduba hadday qaar ku daraan cunfi iyo laad iyo feer dee way muuqdaan oo ciyaartay xumaysaa laakiin markuu dhammaado waxaa looga yaqaanaa spiritka ciyaar wanaagga ama ciyaarta ruuxa ciyaarta wanaagsan in markuu dhammaado ciyaartooygu garamada isweersadaanoo ay laabtaysa sii saaranayaan dee ciddii badisay waxay maraysaa in xukuumaddii ay xintan halkii ka gaadhay tidhaahaa mushaaharadii waxaan ka goynayaa xusbiga taageeradii yareed ee dawladdu sii jirtay iyadoo mar walba hoos u gurnaysa xusbigeeda waynu dee ognahay